bilihii u dambeeyey oo dhanbaba amba sanadkay aan hadda ku jiro dhexdiisii waxaa jiray dhibaatooyin dhanka qaxootiga oo ka jirta dalka Belgium. Lamaha qaabilsan arrimaha qaxootigu in badan bay ka hadlayeen ay dowladana u jeedinayeen warar badan si ay u helaan dadka qaxootigaasi daryeel. Waxaase la moodaa inay taasi ay aad u badatay, taasi dadkiina iyo qaxootigiina marka ka dambaysa aad u soo badanayaan ilaa hadda la gaadhay meelo aan loogu talagelin in dadka lagu hayo si kumeel gaadhsiisa dad tiro badan oo qaxooti ah in la isugu geegeeyo ilaa inta laga helayo meel rasmi ah oo ay ku noolaan karaan. waxaa jira ilaa 700 dad gaaraya oo magangelya doon ah oo la leeyahay meelaha ay seexdaan xataa caafimaad maaragtay kama jiro, waana ay ku badan yihiin dhismayaasha qaarkood oo si kumeel gaara ay dadku iyaga uun u degeen. marka maxaa dowladda uga qorshaysan ayay kula tahay in dadkaasi la caawiyo? dowladda Belgium waa dal yar oo dadka ku nooli uu yahay ilaa 12 milyan ku dhawaad ah. aw qaxootiga dalka soo galay iyo baaxaddu leeyahay iyo awoodda dalka ayaa hadda aad u kala weyn. qaxooti badan aad u tiro badan ayaa yimiday meelihii la qorsheeyey in dadka qaxootiga lagu xanaaneeyana way buux dhaafeen. maadaama ay buux dhaafeen in badan dowladda hay'adaha qaxootiga iyo meelo badan oo ama wargeysyada dalkan Belgium ay wax ku daabacaan waa lagula hadlay. ilaa haddana waxaa la moodaa inay wax fuli laayihiin duruufaha jira darteed. dadkii waxaa hadda la iskugu geegeeyey meelo aan loogu talagelin oo ay ku nool yihiin. tirooyinku waa kala gaargaar. dee hal meel oo 700 oo qof mahine mar dhexdii waxaa la hadlayay garoonka kubadda cagta oo ku yaala magaalada Brussels in si ku meel gaarsiisa dadka loo tajiyo ilaa laga helayo meel ay ku noolaan karaan oo loogu talagalay dadka bini'aadanka inay nool ahaan ay ugu noolaan karaan. qaxootigan marka faraha badan ee maaragtay hadda soo gaaraya xaaladahana hadda la nool xaggay ka yimaadeen? dalal badan ayay ka yimaadeen oo ku kala yaala qaaradda Afrika iyo Aasiya. waxaana ka mid ah dalkan Afghanistan, Suuriya, Ciraaq. waxayna kasoo kala galaan badanaa dadku Greega ayay inta badan ka yimaadaan. waxaan dee sidaa Greega aan u tilmaamayno dadka kasoo gala ee badaha kusoo gala ee kasoo gala qaaradda Afrika inta badan waxay yimaadaan waddan Malta, dabadeed Greegana waxay uga soo gudbaan Yurubta kale. dadku dee jinsiyaduhu waa kala gaargaar, labada qaaradoodna way kasoo kala jeedaan. waxaase la moodaa dadka qaxootiga ah ee hadda Yurub usoo hayaamayo dalkan Belgiga inuu bartilmaameed u yahay oo ay soo hiigsadaan ay aadna ugu soo badanayaan. sidaas ayaa la moodaa, saas bay xaalku leeyahay. dad Soomaali ah ma ka mid yihiin qaxootigan hadda dhibaatooyinka ay haystaan ee ku nool dhismayaasha aan loo diyaarinin in maaragta dadku ay degaan? way ka mid yihiin oo hadda dee anigu goobta ma dhex tegin oo ma soo tirtirin dadka, laakiin dee wararka la sheegay ee warbaahinta laga soo tabinaya aan dhegaysano dadka marka la sheegayo waxay inay ku jirta Soomaali waan maqalaa. dadka dee Afrika ka yimaada badanaa gaar ahaan geeska Afrika waxaa ka mid ah Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Sudan. dadka oo badani way yimaadaan. Soomaaliduna qayb ayay markaa ka tahay. intee bay dee la eg tahay dadka meelahan loogu talagelin dadka inay ku noolaadaan Soomaalida ku jirta intee bay la eg tahay taa hadda ma sheegi karo, laakiin Soomaalidu qayb ayay ka tahay dadka meelaha caanka ku jira. waayahay, ugu dambeyn marka ma isleedahay waxbay ka qaban doontaa dowladda Belgium dhibaatadan gaar ahaan haysata dadkan qaxootiga ee maaragtay bilihii ugu dambeeyey soo gaaraya dalka? waan filaynaa inay ka qabato axsaabaha siyaasadeed ee dalkan ka jira. hadalhaynta arrimaha noocan hadda aad bay ugu badan yihiin. siyaasadda dalkuna waxyaalada ugu badan ee warbaahinta Belgigu ka hadasha baryahan dambe ayay ka mid tahay. laakiin intee ayay qaadanaysaa, muddo intee la eg bayna ku ekaanaysa taas ma garan karo. laakiinse in wax laga qaban doono oo la isku eedeynayo oo axsaabuhuna de kolley qofku xisbi kalina ajadihiisa siyaasadeed ayuu leeyahay. taasi way muuqataa. waxaase dee muuqata sidaan mar dhow kuu sheegaya mudane weriye, baaxadda dalkan iyo dadka imanaya ayaa kala weyn. waxaan dee ognahay dalkan inuu soo maray marxalada arrintii COVID-19 weliba hadda COVID-19 oo haddana dib u kaclayn lagu sheegayo, duruufo dhaqaale oo baahsan, arrimahan duruufahan kale ka jira haddan xaggan Ruushka iyo Ukraine. waxaasoo dhan oo duruufa ayaa iska jira. haddana iyadoo ay taasi jirto waxaan uun la qiyaasayaa
sida aan la saadaalinayo in xal la heli doono xilliga ay qaadan doonto ilaa hadda sama sheegi karno.